من بعد الصحابة يوم العدوان تسرع بالإجابة من بعد الصحابة يوم العدوان تسرع بالإجابة والجنة حق والموت شهادة والجنة حق والموت شهادة فللهوى يلوم من ملام فللهوى يلوم من ملام عودوا يا ناس بالإسلام وإيام فللهوى الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal ku soo dhowaada mu'tamarkii sideedaad ee ay soo qabanqaabiyeen markiska tawfiiq islamic center maanta oo ah maalintii koowaad. muxaadaradanina waa muxaadaradii saddexaad, ciwaankeeduna waxaa weeyaan alcaynu xaq. waxaana inoo soo jeedin doonaa sheekheena sheekh cali, falyatafadal mashkuuran maajuura. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. أيها الإخوة والأخوات، موضوع محاضرة وموضوع كهالليا إيشا مركان لنا هي هبل والله إليستي أما هبل إلبا كتمد أما حنون بولا دقائق إلهي هاي محايا لي إلبا رعدي. موضوعا مركان لقاها الليو waxaan hordhac ka dhigan lahaa, maadaama aad soo raadsateen daawo iimaankiina in la daweeyo, dhammaantiinna meesha u timaadeen in iimaankiina uu kordho oo kabco oo kor u kaco, waxaan idinkaga digi lahaa mawduuca sidan oo kale marka la aqriyo, nusuustana marka la taabto, dad fara badan cudur aanay qabin bay meesha ka qaadaan mawduuca isha. oo waxaan rajaynayaa inaydan meesha ka tegin idinkoo le waana la ilaystay oo labo hebel baa ilaystay, kan baa ila fadhiyey, cimaamadeedu ilaystay, kabahaygu ilaystay, oo meesha dhanba ay isu rogto cudur kale iyo waswaas kale. laakiin waxay ila tahay haddii nusuusta si fiican loo dhuuxo in wax fara badan la fahmaya biidni illahi subxaana wa tacaala. ujeeddada kelimadan laga leeyahay waxay tahay in la saxo caqiidada. maxaa yeelay waxaa jira caqaa'id fara badan oo khaldan oo ku beegan mawduuca la xiriira isha iyo marka laga hadlayo. waxaa la siiyey xajmi ka ballaaran inta ay mutaysato. dad fara badanna dariishadayda kala baxeen iyagoo iska indha saabay amaba dafiray nusuustan tirada badan ee ciidda ka badan ee iyadu ku soo aroortay inay ka hadasho isha iyo sidii dadka loo daweyn lahaa. sidaa darteed waxaa
كلام وقلت لقلني إن أن موجنو محا سغن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محانا سغنين موضوع ما موضوع الباب كيسو اسكفرين هيبا وقف كستبو سيدو ودون وكيولي كرو بس هو موضوع ضوابط دي سله له هالباقي سله له ميزان كيسا وحلقو باقي لها له طبعا أبعنا إنا فعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى لغة عربية كلمة عين أو إشاء qofka markii isha ay ku dhacdo waxa lagu magacaabaa maciin ama macyuun qofka dadka ilaysana waxa lagu magacaabaa caayin ama micyaan ama ayuun intaba way yiraahdaan waxa kala suurtagala inaad ku aragtaan kutubta culimada ay qoreen an-nafs iyadoo la leeyahay naf marka la tilmaamana waxa loola jeedi karaa ama macnaheedu wuxuu noqon karaa ishana waa lagu magacaabi karaa mawduuca kan waa mawduuc aad yaad u taabanaya masaa'isha la xiriirta alqadaa walqadar allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qadaray waxa uu jaangooyey khalaa'iqdiisa mawduuc taabanaya masaa'il alqadaa walqadar mar haddii mawduuc uu yahay masaa'il alqadaa walqadar waa mawduuc marka laga hadlayo si fiijigan ama si taxadar uu ku jiro in loo taabto marka u baahan way biidni illahi subxaanahu wa tacaala iyadoo arrinkuu sidaa yahay haddana kooxihii kala duunaa ee muslimiinta ee firaqdii kala duuneeda muslimiinta ee caqaa'idda waxyaabo fara badan ku kala tagsanaana qolo walbaba meel bay kala dhacda mawduuca annagana waxaan ku gaabsan doonaa biidni illahi subxaana wa tacaala madhabu ahli sunnati waljamaaca iyo manhajka ahli sunna waljamaaca waxa uu ku salaysan yahay iyo waxa ay u yaqaanaan maxaa lagu magacaabaa nusuustana meeshu markuu ka taagan yahay dad fara badan baa waxay diideen ishu inay sabab noqon karto waxay leeyihiin waxa kanu marka ay dhacayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala unbaa socodsiiyey laakiin ishu sabab ma noqon karto fii xiin madhab ahli sunnati waljamaaca uu qabo ishu waa sabab laakiin sababtaasu ma fuli karto haddii ilaahay jaangooyntiisa iyo qadartiisa meesha aanay ku jirin allah subxaanahu wa tacaala ayaa fulinaya iraadadiisa iyo doonistiisana shayga waa uu ku duraysanayaa laakiin ishu sabab bay u noqon kartaa qofkii in markaa uu ku yimaado dhib iyo wixii la mida طبعا meesha marka waxaan diidannahay madhabka lagu magacaabo almu'tazila oo iyagu aaminsan oo leh waxa kan oo wax psychological problem wax la xiriira way nafsi weeye sida maalan qofka markuu dhulka uu ku socdo caadi buu u socon karaa laakiin haddaad tiraahdo hawada ama meesha maaragta dul mar wuxuu iska dhaadhicinaya waa dhici doontaa mar haddii maskaxdiisa ammaankiisa uu soo galo waa dhici doontaan waxay u badan tahay inuu dhaco saa darteed waxay leeyihiin isku soo duuduba wax nafsiya shaqo markaa kuma laha qolada kalena waxay leeyihin maya waxa kaanu ma aragtay sabab iyo asbaab laakiin waxaan leenahay sida ibnu alqayim aljawziya fi zaad almacaad iyo in fara badan oo culummada ka mida nusuustana aad ka dhadhansan doontaan dhammaantood waxa ay tilmaamayaan waxaanu inay noqon karaan sabab laakiin allah baa duraysiinaya allah baa socodsiinaya ilaahay baa markaa ka dhigi kara wax markaa fula haddiise aanu jirin ama fulitaanka ilaahay ama iraadadiisa haddaanay jirinna shaygii markaa suurtagal markaa ma noqonayo hunaa marka faahfaahin fara badan iyo kooxaha waxay ku kala duwan yihiin qofka u baahan wuxuu dul istaagi karaa shifaa alcaliil iyo zaad almacaad iyo madhab alashaacira fi alcaqiidati oo doctor safar xawaali rag fara badan oo ay tilmaameen maxaa muujinaya inay ishu iyadu raad ay leedahay culimmada waxay isku dayeen nusuus waxaa jirta qayaxan oo iyadu si abbaara u carabaabtay ama u tilmaantay ee la xiriirta isha sida marka loo baxo xadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam laakiin aayaadka ilaahay waxaa ka mid a suuratu yuusuf markii nebiyullaahi yacquub uu la hadlay muxuu yidhi yaa baniy laa tadkhuluu min baabin waaxid وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولا شيء دي ودمانتين هل الباب كولا قلنا من مد أقلا وحان إذا كتري كرا أما إذا سمان كرنا مجرته لكن الله سبحانه وتعالى بحكم كإسكاله إن الحكم إلا لله انت أبو يري مركا ابن كثير وحلا مركو فسيري آيادة ابن عباس محمد بن كعب مجاهد الضحاك
qataada iyo in fara badan raggii farta lagu fiiqi jiray marka tafsiirka loo baxo waxay dhammaantood ay leeyihiin il buu kaga baqay wuxuu kaga baqay wiilal waxay ahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala aad iyo aad u qurxiyey waxa uu ka baqa haddii dhammaantood ay hal meel ay ka wada galaan